xishood waan kaa xishoonaya qadanay hooyo sidaan u yidhaahdo codadkaan u soo dubay aniga inankaaga maxamed u soo diray haye hooyo haye maxaad uga baahan tahay halkaan joogadi magaalada joogay kale maxaad iga doonay aniga adiga hooyo iga caayinad kuma caayo kuma habaarayo ammaanka igu dhawaa محمد سكالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي كلهم آد بايدي سلامية سود وذا ولا له قاري وحن آديات ولا قيرود إن كاير هبن دود لايف صوت قلي إنكستو وقتي أن ويان كصوت وحربنا أنا ما وحي رأيي كديبتو وأنا صاحد لكن وهوش ويقبضني ما أنا سوق قليل لكن هبنكي ولايف كصوت قلي والله وان داوني بلا ولا دمات وهنت وان أوي oo hintan ooyay waligeey ma ooyin maalinkii hooyadii dhimatay Allah naxariistay baan ooyay oo hin ade maartay xad dhaafa inanka yarba iigu xigay yani marka qaar waxyaaba maartay hooyada ku saabsan waa dibaan uga qeyrooda inankan yar waa inay raja saawada ogtihiin waa inay ciyaala waa inay raja ah maartay dhibaato badan loo geystay waxa uu geystay gabadha la qadan qaran dhibaatada ay geysatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umba ka xisaabin doona inagu dhaxdooda ma aynaan joogin oo guri kula ma noolayn laakiin waxay marxaati laga yahay oo cadeyn loo hayaa inaan ka yar inama yar jiri ah loo ballamiyay oo la garaacay oo waliba codkeedana ay codkii uu ka duubay ka yari oo ku jirto ay leedahay halka joogta waraya hebel baan ku ballamiyay markaasuu hooyo ma hebel isaga ay soo doonanaya gabadha la yiraahdo qadan qaran dabcan anigu ma sidan ka aaminsan sida imka noqotay waan taageeri jiray waan jeclaa laakiinse nabiga way u gaftay inankii rajayga ahaayeen la joogay ay haysay haddii maartay ay soo caawisay inanka yar haddii gurigeeda ku noolaa haddii wax kasta u qabatay waxaasoo dhan maxaa burburiyay maxay ku baabisay inay tiraahdo Hargeysa ku noolaan maayo inay tiraahdo maxay toolay dadkii soo dhaweynay Muqdisho iyo Garowe ay wacdo tiraahdo soo dhaweynina inankii rajir u ballamiso inankii yara niman u ballamiso la qaraacay oo la dilay oo waxaan kugu oriyay ay tiri magaalada aniga isaga wada joogmayno wixii ka dhaxeeyay Allahu a'lam wuxuu abiyus badan baa la geystay waa la dhibaateeyay caruurteeda ay dhibaataysay laakiin waxaan inagu marxaati ka nahay qadan qaran codkii laga keenay ay nabiga ku aflagaadeynayay halkan ma soo dhigi karayo nabigaaga waxa ku samee hooyadaada waxa ku samee haddana waxay ku darsatay inay tiraahdo codkan aniga ma aha waa la sameeyay waa la edit gareeyay inay tiraahdo codkan waa la edit gareeyay aniga ma aha ma qadan qaran oo codkeeda aynu naqaano iyadoo dagaal ku jirta iyo iyadoo caadi u hadlaysa iyo iyadoo meed qaadanaysa intaba codkeeda meediyaha yaalo codkan ma la dafiri karaa afkiisu ka sheegay inuu afku shalay hooyo kulaha kugu caayin kuma noo caayin ilaa hadda qadan qaran waan jecelahay buu yiri hooyada bay ahayd buu yiri qadanay hal sano qof martii ku wahay ilaahay baan kugu dhaariyay qof hal sano martii ku wahaa baad leed caalamkan bara dadkan bara Muqdisho aadri ana ka furay waa lagu Muqdisho ana maartay yiri iga xidhina aad leedahay Muqdisho dadka iyaga heer Muqdisho dadka iyaga goba iyaga dadka soo dhaweeya iyaga dadku magan u yihiin Muqdisho waa caasimada ummadda Soomaaliyeed lama kala xigo qof yar Hargeysa jooga intuu waco hebel halii si daayo ma oranayo aad Hargeysa degantaha qooqaaguna aftahanimadiisa iyo fariidnimadiisa iyo kartidiisa ayuu meel kasta ku maraa oo haddana Puntland ku jooga reer abtigii kula jooga ma garatay waxaan u mahad celinayaa reer Puntland inay kaarsi soo dhaweeyeen reer Puntland gobonimo leh waalidi kooga waligiinba gob waa ahaydeen waad mahadsantihiin inay kaarsi soo dhaweyseen inaan kaayr waxaan leeyahay Soomaaliyeed siiba qoysku ka dhashay inaan kaayr ha loo kaco waxa loo qabto wax ku ool leh oo wanaagsan oo muhiim ah loo qabto inaan kaayr qof kastana maartay oo guri reer ku nool waxaan kula talinayaa guri reer marti ha u noqon
banaankaas seexataya dariiqaas seexataya guri bila aadan adigu aadan hooyada ayaa bahaa lahayn ha seexanin hadday habartaa leedahay hadduu abtigaa leeyahay xataa ha seexanin waayo sababtoo ah dhibaato abuse berina maaragtay dad xumaanta ad ka sheekayso lagugula dhaqmo waxaa lagu leeyahay annaga sahino annaga soo korinayo annaga waxu qabno nagu jasaaray marka waxaan leeyahay walaalayaal dulmigaa iska deeno qadanay dulmigaadna iska daa dahri calasow xataa markuu kugu yidhi nebiga wadaf lagaadisay waad u gaftay waxaa tiri nebiga iyo waxaa haylahoos ordin baa tiri wax ka weyn ba ii yaalla nebiga iyo diinta ilaahay subxaana watacaala wax ka weyn ma jirto wax ka weyn ma jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamka wax ka wanaagsan oo ka weyni maanta adduunka ma jirto ma garata qadanay ilaahay naadan usoo noqon kuleeya ilaahay usoo noqo ilaahay ka baaqiya rag iska dhicis meel ma wada galaan maanta waxay noqotay adiga keliga iyo ummadii Soomaaliyeed ee baraha bulshada waayo xaqa ilaahay baa u hiiliya inaan ka yar aduu kula joogay gurigaagu ku noolaa wuxuu qabay iyo wuxuu tirsanay ilaahan baa ogaa laakiin waxa dibadda u saaray ee banaanka u saaray u cararay inaad adigu inama yar jiriyo u dirtay codkaagina uu yaala baraha bulshada oo ka duubay isagu oo aan cadeyn u baahnayn oo marxaati u baahnayn oo wallaahi oo billaahi oo aan ku dhaaranayn inaad adigu u dalabtay ciyaalka yar jirida dilay adigu aad u dirtay marxaati baa laga yahay ilaahay dad islaam baan ilaahay nagu og yahay qadanay nebiga aflagaadisay inaan ka ayar shalay tiri hooyaan ku hayo maxay tiri hooyo afkad hooyo ku tiri inaad hooyadii wixeedii ku caydid hooyadii qabri ku jirta hooyadii lafa noqotay oo cunay oo dhamaatay oo lafaheed dhamaadeen maxaa ka xun aniga maanta rajaanay hooyadii way dhimatay qofka maanta wax iga dhaha anigu cuqdad baan u qaadaya qofka maanta hooyaday aaya cuqdad baan u qaadaya iska daa ilmo yaroo saqiiro intan leego dhowr 12 jira oo mbeed iyo bara lahayn shalay dad ballan qaadatay hooyo soo dhawow shalay qooqaaga horta caan buu ahaa ana qooqaaga adiga kugu maanbaran baraha bulshadan ka bartay tiktokiisa waxaan falow gareeyay maalinkii 2023 markii dagaalkii ilaas caanood uu ka socday waagaas uu ka yeelay tiktok furto ciidamada qaranka uu ku jiray hadda caan muuna noqonin hargeysa aniga keenay baa tiri hargeysa cid kama xigtid qadanay shalay adigu hargeysa wax la igu haystaayo musabix iyo tolkiisa igu haysta baad lahayd maanta inaad adigu dadka ku hargeysa ku qabsato waa qalad hadii aad arkaa kursiga fuulay waa qalad weyn midda kale qooqaagu caan buu horta ahaa hal sano kula joogay halkaas sano caan laguma noqdo dadka anaa baray muqdisho waxaa tiri dhowr jeer baa muqdisho anaa ciidamada muqdisho ka furfurayo iga xidhina muqdisho hargeysa loogama taliyo anigu waxaan nin jirkiisa loo dhaafin anigu waxaan nin magaaladiisa loo dhaafin anigu waxaan nin la caabaysto magaalada cib loo geliyay beena anigu waxaan nin qofka ilaahay iyo nabigiisa raadi gelin waayay ayaa ina yar oo u dhalay ina yar oo aanu dhalin oo gurigiisa jooga raali gelinay anigu waxaan qof ilaahay raali gelin waayo qof raali gelin oo maanta booska lagu banaysay uu yahay oo maanta booska lagu qof ilaahay raali gelin waayo qof bili aadan raali gelin iyo nabigiisii calayhi wasalaam inuu hooyaday god ku jirto inaan nafteeda la yaamaan gelin oo garow lagu keenay ayadoo qadan ciidan wadata oo ciidan ka caastay 3 askari wadata hargeysa habeen hore raadi qaran waynu ogeyn hadda ka hor markii musabix dalka hayay in haday qof isku dhacaan marka la xiro ay loo jirtay wadanka leegu hanjabaya dalka leegu hanjabaya qabiil bay hanjabaya ayada shalay waxay ka cabanaysay maanta ku dhaqmaysaa dalka hadii adeerkeed uu qabtay macnaheedu ma aha ciro cid kasta dooratay reerka soo saaray ee halka ciise ku fadhiisiyay in ciro kursiga ku fadhiisiyay habar jeclo cidda kursiga ku fadhiisay ciro intaas oo kun oo jeer buu tartamay wadanka u tartamay manu noqon madaxweyne sanadkan maanta uu noqday madaxweyne habar jeclo la'aanteed madaxweyne la'aanteed muu noqdeen hadduu noqday adeerka baa xilka hayaan la xidhmay diintan caayay nabigan caayay wax ka sameynay ay qaran saasi tahay saasi ma nasabnimo qof weyn waa tahay maamana waa tahay maamada waxa lagu ogaa inay sharaf yeelato waxa lagu ogaa inay maartay dadka gurigeeda ku nool ay ixtiraamto baa lagu ogaa oo ciidan ka caastay 3 askari wadata hargeysa habeen hore raadinaysa hargeysa jooga anigu waxaan ninaan shaqaysan kari waayay anigu waxaan inay waxaysan kari waayay anigu waxaan inay magaalada kari waayay anigu ana 20 sano ka dhigay qadan hargeysa ay ku soo gelisay anigu waxaan inta ay ka qarinaya xoloshada ku jiray moobligayga ku jira ka weyn anigu waxaan ninaan ciwaan loo deynin anigoo social media ka shaqaysta
أما لايف أي قصة كشواح أما أي قصة كشوا حيسين أنا أنا قلنا هو ده اللي قصة على أنا وحنا لله تشطي أنا وحنا ندور كل شيء سوري والله aad baan ugu xumahay waxaas lagu qarsanayay waxa wanaagsanayd markii uu arkay dhibaato in lagu bilaabo koodii horeysay uu yimi 2024 waa sanadkii la dhaafay uu yimi inuu markiiba aan qarsan dhibaatada ka cararo dhibaato intaaba lama soo gaadhin waayo guri kasta bariis waa yaala meel kasta bariis waa ka helaya waaba nin shaqaysanayo xayeysiin sameeyo lacag haysta boodiisa baa la cunayaba baahi ma haynin gaaji ma haynin magaalada intaas oo qoys oo raba jeclaaba degan intaas oo qof isaa qaba degan dalkiisa hooyo nin ciidamada qaranka ka mid ah buha meel uu seexday ma waayeen laakiin inuu intaaba jooga ma yahayn wallahi ciil ah qarsanina waligiina meel ku dhibaateen yahay joogina hays odhanina qofkan uu isbedeli doonaa qofkan uu hagaagsanaan doonaa wanaag buu kula dhaqmi doonaa never hays odhanina dhibaatada markay ka badato aakhir waxay isu bedeshaa maskaxiyan qofku xanuustaba waan ka xumay wallahi inaan ka yar dee habeenkaa waan qiirooday hadda caadi baan ilaa habeenkaa waan la ooyay inaan ka yar dhibaatada loo geystay